إنا لله وإنا إليه راجعون maanta waxa ay kamid tahay maalmaha mugdiga ah ee reer Muqdisho ay martigeliyeen waxaan halkan xabal wareed lagu sameeyay iga dambaysa afar dhalinyaro ah oo kamid aha dhalinyaradii xalay ku geeriyootay qarax ismidaaminta ah ee ka dhacay afaafka hore ee saldhigga booliska ee degmada Shingani waxaana wadarta guud ee dhimashada yihiin 7 dhalinyaro ah oo dhamaantood ku noof waayay qaraxii xalay waxay ahaayeen dhalinyaro aqoon-yahan ah oo wax bartay mustaqbal wanaagsan ka lahaa nolosha balse xalay ayay toodi ahaatay oo ay ku dhinteen qarax ku haleelay maqaaxi ay ku caweynayeen waxay ahaayeen saaxiibo intooda badan wax isla soo bartay waxaana lagu aasay xabaalaha Muqdisho oo duleedka ka ah magaalada Muqdisho dhalinyaradan ayaa lagu kala magacaabi jiray Yaasiin Xuseen Sareeye Cabdiqadar Maxamed Cali Maxamed Deeq Cusmaan Cabdimaalik Maxamuud qaar kamid ah saaxiibadii ay isku dhawaayeen islana soo wax barteen oo aad u murugaysan ayaa nala hadlay maantay waxaan soo aasnay walaalkay marna saaxiibkay ahaa u muddo aan soo wada noleen ruuxantii yani waa geeri aad u naxtin badan waa walaalka saaxiibka u muddo aan soo noolideen waqti badan soo wada qaadateen haddana waxa waaye geeridiisa marka lagu sheegay iyo waqtigii aad isla hadlaysay ama soo joogteen wax u dhaxayaan waxyaalo waxa waaye arumaysi karin waaye runtii maanta waa maalin aad u murugo badan waxaan ka soo tagnay mid ka mid ah saaxiibadeen ugu qaaliga ahaa laakiin ilaahay ayaa naga jeclaaday waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto runtii qof aan ka samri karno ama aan yeeli karno ma ahayn haddii nala ka ogolaanayo laakiin wax walba qadarta allo ayaa ka weyn saaxiibaan isku weynaay wax isla soo baranay intaas friends ahayn haddana wuxuu aan ka maarmi karin laakiin ilaahay naga jeclaaday ilaahay u naxariistaan leenahay asxaabtana waxaan leeyahay hal iska cafiyo waalidkii iyo asxaabtana ilaahay samir iyo wanaag ka siiyo إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan dhihi karaa walaalaheen maanta inaga baxay dhamaantood waxay aan ku qalbigeena ku weyn wana la dhashay waa asxaabna la kuwa aan hari habeen waqti ugu badan aan wada qaadano wallahi maanta waxaan sheegay ma aqaano waxaan dhaan ma aqaano aan ahayn ilaahay wada naxariista dhamaantood waxay aan dhalinyaro wax baratay dalkooda joogo farxad ku wada maalin kasta iska warhayo maanta waxaa dishay gacan ka xaqdaran walaalaheen shal naga wada dhintay dhamaantood waxay aan ku weyn wax kale oo aan dhihi karo male maanta aan ahayn ilaahay dhamaantood waxa waa janno inuu ku rijeeyo maan dareenkeena ma cabiri karno qof nagu qaaliya naga baxa maanta laakiin sida u jeclan ilaaha u jeclaado hada qadar ma qof dhaqso ilaaheeno waxa ilaahay uga rajeynaa jannada waasacayno khayr inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا باقيا وحي دعي يعني مصيبة هيك هذه مصيبة دعنا القرآن كنا فرنا يعني إلهي الله ونو إلهي سبحانه وتعالى يا برول بالله ونهنا وحي دعينا مصيبة هذه إلهي سبحانه وتعالى صبر إيمان الله نقصيه ولكن عبد المالك يعني لن يتوجدها وانا قاعد بحين نسقاس وحي تابني ولكن عبد المالك ومن كل وقت أفر سنة اسبوع سافرني oo aan isla dhiganay jaamacadda Muqdisho marka sabir iimaan Allah ka siiyo ehelkoodii dhamaantood yani asxaabta wadanka Ilaahay noo nabadiyo waxaan isku daynay in aan la hadalno ehelka wiilashii gooriyooday balse nooma suurta gelin xanuun ay dareemayaan awadeed qaraxyada Muqdisho ka dhaca ayaa mar walba geysta khasaaro weyn oo saameyn ku reebta ehelka iyo saaxiibada dadkooda ku waayay qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho Sucaad Cabdi Casiis Daahir telefishinka Somali Cable qabuuraha Muqdisho